بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعل صاحبة قيمها قدرلت إيقاعها لقبضلو من البعد جوكتال يا مرحلة البعد لقدا وليسال وحال أهود دكالي لهي وقتكو هايدي ولك سلادو قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa laylatul qadriga habeenka ka qaarka badan kulka bilood salawatullaahi ala khayri khalqi Muhammad Muqtari salawatullaahi ala khayri khalqi Muhammad Muqtari maanta waa maalintii 17aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana miiska inoo saaran laylatul qadriga habeenka ka qaarka badan kunka bilood ayaan markaa muuqaalkeena ku gorfin doonaa waxaan eegi doonaa goorma ayay tahay laylatul qadriga ama ay ku beegan tahay maxay tahay sidoo kale muhiimadda laylatul qadriga ayaan eegi doonaa calaamadaha laylatul qadriga lagu aqoonsado ayaan wax ka taataaban doonaa waxaa kaloo eegi doonaa oo aan markaa idiin soo baahin doonaa maxaa la sameeyaa habeenka markaa laylatul qadriga sideese looga faa'iidaystaa sababta markaa loo qariyey habeenka laylatul qadriga oo aan loo cayimin oo aan loo dhihin habeen hebel ayay tahay habeenka laylatul qadriga maxay tahay waxaan kaloo aan eegi doonaa dardaaranka culimada ee 10ka dambe ee Ramadaan iyo waxyaabaha markaa ay ka yiraahdeen laylatul qadriga qodobadaas ayaan muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa daawadayaal قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو markale kulan wacan saaxiibayaal muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaalo taxala ah oo lagu talagalay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan in markaa daawadayaasha la soo baahilo isla markaa la kaga hadalno waxyaabo markaa muhiim ah oo la xiriira Ramadaanka iyo sida markaa ahmiyadda uu bulshada u leeyahay iyo sida dadkeena ay uga faa'iideysan lahaayeen وبشا سجينه إلهي نسيه حين سعيدين صوم رمضان maanta oo ay taariikhdu tahay 17ka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaynu markaa ka hadli doonaa laylatul qadriga habeenka markaa ka qaarka badan kunka bilood laylatul qadriga waa habeen markaa ugu qaalisan sanadkii oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu hibeeyay ummadda markaa nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee si markaa ay u helaan ajir aad u weyn waqti yar gudahood magaca al-qadar waxa uu markaa xambaarsan yahay laba macne oo waaweyn sharaf qiimo iyo qadarin markaa aan xambaarsan habeenka la qadaro masiirka sanadka ayay ka dhigan tahay markaa laylatul qadriga maxay tahay muhiimadda laylatul qadriga haddii ay loo eegno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu habeenkan u hibeeyay suurad dhameystiran oo la yiraahdo suuratul qadri waxyaabaha markaa uu kaga duwan yahay habeenkan habeenada kale waxaa ka mid ah waa inuu yahay habeen markaa ka khayr badan kun bilood cibaadada aad sameeyso hal habeen oo kaliya waxay markaa ka ajir badan tahay cibaado la sameeyay 83 sano iyo 4 bilood oo aan habeenkaasi ku jirin soo degista quraanka waa habeenkii la bilaabay soo degista quraanka kariimka soo degista malaa'igta habeenkan waxaa soo dega malaa'ig aad u fara badan oo uu hogaaminayo Jibriil calayhi salaatu wassalaam iyaga oo markaa naxariis iyo nabad markaa u sida adoomada Allah subhanahu wa ta'ala qadarinta sanadka habeenkan waxaa la qoraa risqiga cimriga iyo sidoo kale wax kasta oo qofku ku dhacaya sanadka soo socda ilaa Ramadaanka dambe قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو
haddaba goormo ayay tahay leylatu qadriga nebigeena maxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee ma uusan sheegin habeenka saxda ah oo ay tahay balse waxa uu loo sheegay in markaa halkan aan ka raadi karno waxay ku jirtaa 10 habeen ee ugu dambeeya ramadaanku waa habeenada markaa lamaanaha ah waxay u dhowdahay in markaa ay noqoto habeenada markaa kisiga ah sida 21 23 25 27 iyo sidoo kale 29 xigmadda loo qariyay haddii aynu eegno alle wuxuu u qariyey si addoommadiisu marka ay ugu dadaalaan dhammaan 10 habeen in markaa aysan hal habeen oo keliya aysan u go'in calaamadaha leylatu qadriga lagu aqoonsan karo haddii aynu eegno calaamadahu waxay soo saaraan calaamada markaa lagu garto habeenkan kuwaasi oo laga soo xigtay axaadiista xasilooli iyo nabad habeenkan waa mid degan oo uusan jirin kuleel markaa badan iyo sidoo kale qabow badan intaba qalbiga oo jilca qofka mu'minka ah waxa uu dareemaa xasilooli ruuxi ah iyo sidoo kale khushuuc ka duwan habeenada kale qorax soo baxa maalinta xigta qoraxda maalintaasi soo baxda ma laha fallaaro xooggan waxayna markaa u eg tahay saxal cad oo kale sida dayaxa oo kale qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko haddaba maxaa la sameeyaa habeenkan si markaa aad u hesho ajirka habeenkan sameey qodobada soo socda ducayso ducadii markaa nebigeena maxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee uu bara caaisha oo ahayd allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii sidoo kale duko adiga oo aaminsan allana markaa ajir ka rajeynaya akhriska qur'aanka iyo sidoo kale digriga badi sidoo kale badi istikfaarta iyo in markaa alla subxaanahu watacaala aad weydiisato dembi dhaaf oo istikfaar badan aad la timaado ictikaafka haddii aad awooddo ku sugnow masjidka 10 dambe ama 10 habeen ee ugu dambaysa bisha barakeysan ee ramadaan si markaa aad uga faa'iideysato fursadda qaaliga ah ee ku jirta 10 habeen ama 10 ugu dambaysa ee ramadaanka oo ah leylatu qadriga qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xigmadaha culimmadu haddii aynu eegno culimmadu waxay yidhaahdeen haddii qof markaas seego leylatu qadriga waxaa seegay khayrkii oo dhan haddii aad ku weydo 83 sano oo ajir ah hal habeen gudahood waa khasaartay waana khasaaro weyn marka ha noqon qof ku mashquula suuqyada iyo dukaamaysiga habeenadan markaa qaaliga ah iyada oo aan wada ogsoonnahay in markaa dadkeena inta badan ay xaadiraan suuqyada maadaama 10 dambe inta badan dadkeennu ay markaa u dukaamaysi tagaan dharkii ciidda si markaa carruurta ay ugu farxiyaan oo ay ugu soo iibiyaan dharkii ciidda gabagabadii leylatu qadriga waa habeen hadiyad alle markaa uu ummaddan fursad markaa u siiyey isla markaana waa fursad rasad markaa loogu samaynayo nolosha haddii aad dareemayso in dembigaagu batay noloshaadu inay khasal tahay leylatu qadriga waa albaabka xalka sababta loo qariyey habeenkan ibnu qayim allah ka raali noqdee waxa uu yidhi alle waxa uu qariyey leylatu qadriga si markaa uu u kala saaro kuwa markaa dhabta u raadalaya iyo kuwa markaa caajislayda ah xigmadda sida alle u qariyey saacadda ducada la aqbalo maalintii jimcaha iyo sidoo kale magaciisa ugu weyn ayuu markaa u qariyey habeenkan si addoonka u ahaado mid foojigan cibaadaysta 10 dambe ee ramadaan qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko
guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeelii koobla ee kaga hadleelay habeenka laylatul qadriga iyo waxa markaa bulshadeenu ay ugu dhagan tahay gaar ahaan qofka sooman marka la joogo bisha ramadaan gaar ahaan 10 dambe oo la sheegay in markaa laylatul qadriga ay ku jirto tan iyo inta muuqaalkan mid lamid ah ku kulmi doono saaxiibayaal waxay leedahay kaga tegaynaa sidaa iyo ammaano Allah Ramadan